Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada khiyaartayda qaaliga filinkeena maanta. Qaybta hore waxay noo mareysay asigoo xanaaqsan maadaama xal uu sugaayadana imaaweysay xil ayaa qabanayo. Ayadan markay ogaato wiilka inaysan qandhahaynin meesha dhan way kasoo tagaysaa. Maalmaha kamid ah waxaan arkaynaa asigoo iska bixinaya finaanada. Ayada ayaana gudaha u soo galayso. Kadib aad iyo unaxaya waxaan ku dhahay miska soo galaysaane. Ayadan waxay ku dhahaysaa sida naagi oo kalmacada wixii shoonaysaane wayna ku qoslaysaa. Ugu dambeyn wiilka ayaa la kulmaa wuxuu keenayaa dabool mobile ah. Idan way ku farxaysaa. Habeen kale wax la kulmaysa jaceylkeeda labadoodan way wada sheekeysanayaan. Wiilka kale saaxiibkeeda hayna wuxuu maqlayaa taleefan dhacayo. Wuxuu ogaanayaa ayada taleefankeeda inay ka tagtay. Kadib taleefankii uu qabanaya waxaan la hadlaa awoowaheeda. Wuxuu ku dhahayaa gabadheeda ayaan agteeda u soo socdaa. Waxaan rabay inaan u sheego. Saaxiibkeedana ayadoo san ogeenayo wuxuu keenayaa awoowaheeda. Ayadan midaas way ugu mahadcelinaysaa waxaan ku dhahaysaa qof wanaagsan ayaa tahay. Asigana wuxuu siinayaa taleefankeeda. Run ahaantii jaceylkeedan arrintaas aad iyo ugu xumaanaya maadaama awoowaha wiilkan waxyeesiinayo. Haweenkii markii la gaarin saaxiibkeeda wuxuu ku dhahayaa waan kuu xiisi doonaa. Ayadan waxay ku dhahaysaa waan baxayaa waana soo noqonayaa oo kaliya howl yar ayaa iga xigto. Kadibna hab ayay siinaysaa. Asigana markii habta siistay kadib wuxuu ku dhahayaa waan huwayna tii soo laabanaysid. Ugu dambeyn maalintii xigta wuu soo wadayaa. Waxaan isla imaanaya meesha tareenka lagu raaco. Kadib wuxuu ku dhahayaa adigoo habaysin miyaad iga tagaysaane. Hab ayuuna si xoogaa u siinayaa. Ayadan way qoslaysaa kadibna saayid ayay hab u siinaysaa. dambeyn meesha shaqada markay imaado saaxiibkeeda wuxuu arkayaa wiil ayadoo la sheekeysanayso aad ayuu ugu masiirayaa. Ayadan markii aragta asigoo soo socda waxay dhahaysaa mudan naga raali noqo. Asigana wuu qoslayaa kadibna si xun ayuu u fiirinayaa. Ayadan way la yaabaysaa sida uu u fiirinayo. Kadibna wuxuu ku dhahayaa wanaag walba adiga ayaa u qalmo. Xasuus walbana adiga in lagu soo xasuusta ayaa mudan. Kadib markay guriga ka soo laabatay kaxliyada ayaa waxay ku xusanaysaa inay banaanka isku raacaan. Asigana wuu ka ogolaanaya labadoodna way israacayaan. Kadib wiil kale markuu arrintaas arkay aad iyo u xanaaqaya. Kadibna aad inuu u xanaaqay wuxuu go'aansanayaa inuu baarka aado. Kadib gaarigiisa soo qaadanaya. Baarkiyoona sidii ku imaanaya. Labadoodna banaanka ay ku wada sheekeysanayaan laakiin taleefankeeda ayaa soo dhacayo. Markay qabo maagtana asigii ayaa ka qaaday. Wuxuu ku dhahayaa maxaad u baahan tahay. Asigana wuxuu ku dhahayaa ali imaado. Markay u imaadaan wuxuu arkayaa inuu cabsan yahay oo iska jiiftayba. Ayagan waxay ku qasbanaanayaan inay soo wadaan. Ugu dambeyn way soo wadayaan. Ayadan kabaha ay ka siiwaysaa. Asigana midaas aad iyo u xanaaqaya asigoo dhan ayuu dhulka soo seexinaya. Ayadan way la yaabaysaa. Ugu dambeyn labadoodu isla seexanayaan laakiin ayada ma seexanayso waxayna fiirinaysaa wiilka saaxiibkeeda ahay. Waxayna soo xasuusanaysaa markuu dhahay wax walba waxa mudan in adiga laga soo xasuusto. Kadib labadooda ay kala sikinaysaa maadaama isku korjiifaan laakiin asiga wuu ku dhigayaa. Ayadan way ka naxaysaa meesha dhan ayayna ka cararaysaa. Kadib oo soo kaxay wuxuu ogaanayaa inuu kaligiis jiifo. Wiil kalena wuxuu soo xasuusanayaa qofka jaceylka dhabta u qabtay inuu san asiga ahayn oo yahay wiilkan hadartan saaxiibkeeda ay u maleyso. Waxaan ogaanayaa qofka sawirka uu ka qaadayo inuu asiga yahay laakiin uusan ahayn jaceylkeeda dhabta. Ko labadooda sawir ka qaadayna asiga sawir gooni ayuu ka qaatay. Kadib wiil kale wuxuu hooyadiis u sheegay inuu ayada keensan doono wax walba runtaan uu u sheegi doono. Asigoo xanaaqsan ayuu guriga ka soo baxaya. Dib maqaayada ka shaqeynaysa ayuu imaanaya ayadoo si xoog ku soo badanaya. Wuxuu soo saaranayaa gaariga. Asigana saaxiibkiisa ayaa u sheegay inay iyada labatay. Asigana gaariga ayuu xoog u sii wadaya. Kadibna wiil kale wuxuu ka soo baxaya maqaayada asigoo ordayo. Kadib meel walba ayuu ka raadinayaa. Ugu dambeyn meel ayuu istaajinayaa. Wuxuu ku dhahayaa aniga waan ku jeclahay. Qofka yaraantaada ku jeclaayna aniga waay. Ayadan midaas ma aaminayso. Kadib waxay ka soo degaysaa baaburka. Asigana wuxuu ku dhahayaa maxaa kuu sheegay. Kadib hab ayay siinaysaa. Waxaan ku dhahaysaa wuxuu ii sheegay muhiimaan. Waxa muhiim ah aniga qofkan jeclahay. Kadibna shub ayuu ku dhahayaa. Ugu dambeyn labadooda dalxiis ay soo wadaadayaan. Meel walbana way isku raacayaan. Run ahaantii ayadana asiga agtiis waxay ku dareemaysaa farxad saayida. Mar walbana asiga ay dabraacaysaa. Jacayl badanna wuu siinayaa. Ugu dambeyn habeenkii markii la gaaro wuxuu keenayaa meel cidla. Wuxuu ku dhahayaa aniga aad ayaan ku jeclahay laakiin qofka saxda adiga aad jeceshahay masiraantaada jecleeday aniga maahan. Asigana markuu ereygaas dhahay daaqada ayuu ka soo fiirinay. Wuxuu kale ku dhahayaa aniga waa ku jeclahay laakiin micnaheedu ma qofkaad mar walba jecleed ama mar walba aad ku dhaaran jirtay inaan aniga ahay. Waa sax meeshaan deganahay wuu degnaan jiray laakiin aniga mihi. Ayadan way ku qaylinaysaa waxaan ku dhahaysaa waad ii khiyaantay. Aniga asiga hadalkiisa ma aaminin sababtoo adiga aan kalsooni kugu qabay laakiin khiyaanoolaha saxda ah waa adiga ayaa ku dhahaysaa meesha dhan way ka soo tagaysaa. Asigana wuu oonayaa aabihiis ayaan sasawaayo. Wiil kale
meel kor ayuu ka fiirsanaya wuuna ku farxaya maadaama runtoo dhan ay ogaatay. Markay guriga imaadana aad iyo aad ayay u wanaagsan maalina gurigiisa ayuu ku balmiyay. Markay imaadana wuxuu ku dhahay ha iga tagin, waxaan rabaa inaad ila joogtid sababtoo hadeertan waxaad ogaatay wax walba runta. Ayadan weydiidaysaa waxaan dhahaysaa waa inaan baxaa. Asigana wuu ku qayna wuxuuna ku dhahay sidee mid ku awoodayne. Kadib ayada guriga ayay ku soo laabanaysaa. Asiga ayaa la sheekaysanaysaa saaxiibkeedan xumaata dhan ma dareensiinayso. Mar walban sidii hore oo la kaftami jirtay oo la kaftamaysaa. Ugu dambeyn asiga markuu baxo waxay wacaysaa wiilka kale waxaan ku dhahaysaa waan ogahay wax walba runta. Adigan waad la socotaa midad. Asigana wuxuu ku dhahaa dhaqso maxaa kale horta inaad ii sheegtid. Laakiin ayada naqaska ayaa ku yar dhigay wayna hadli weynaysaa. Shaqaalaha ayaan la hadlaa waxaan ku dhahay xaaladeedu way xuntaa. Ugu dambeyn isbitaalka ayaa la keenaya. Markii xanuunsanaysa wiilka la joogay wuxuu ku dhahayaa markaa meeshaan la keenay qof kalmiya ogaanay. Wiilku wuxuu ku dhahayaa maya. Asigana wuxuu bilaabayaa gabadh inuu wajiga ka salsalaaxo. Wiilkan wuu xanaaqayaa kadibna wuxuu wacayaa wiilka kale. Waxaan ku dhahayaa isbitaalka ay joogtaa way xanuunsantaa u yimaab. Abooheelow kalena gabadh ayuu salsalaaxaya maadaama ay jiifto aysan waxba dhihi karin. Ugu dambeyn wiilka kale masaakiinka wuu soo xarrayaa wuxuuna imaanayaa isbitaalka. Wiilka yarkan wuxuu tilmaamayaa qolka ku jirto. Ugu dambeyn qolka ayuu imaanayaa wuxuuna arkayaa wiilka inuu saayid ugu dhow yahay gabadha. Wuxuuna ku dhahay maxaad halkan ka soo doontay. Aniga ayada waa ishelna ayadan way u ogolaatay. Adiga meeshaan booskaaga ma banaano. Ugu dambeyn markay soo caafimaado gurigiisa ayuu keenayaa. Ayadan gurigiisa caajis ayay ku dareemaysaa. Kadib markuu shaqada ka soo laabto wuu u dhawaanayaa. Wuxuuna salaaxayaa madaxeeda. Mar alaal markii ka dambeysana wuxuu isku dayayaa ayada inuu shumiyo. Wuxuuna u dhaweynayaa afkiisa. Laakiin ayada ayaa indhaha kala furayso. Waxayna ku dhahaysaa maxaa sameynaysaa. Asigana wuxuu ku dhahayaa ma soo jeedaane. Ayadan way soo boodaysaa waxayna ku dhahaysaa waa inaan aasadaa. Asigana wuxuu ku dhahayaa labadeena ayaa isjecel. Ayadan waxay ku dhahaysaa dubadan ayaan gurigiis joogaa weligiisii ma soo dhawaanin. Hal habeen ayaan kula seexay ma waxaad rabtaa jismigayga oo dhan inaad lahaato. Asigana wuu soo dhawaysanaya waxaan ku dhahayaa waxaasoo dhan iska iloow. Laakiin ayada dharbaaxsha ayay ku dhufanaysaa. Asigana wuu qoslayaa. Ugu dambeyn jaceylkeeda ayay u imaanaysaa waxaan ku dhahaysaa mar weyn inaan qof kale lahaado. Marka horeba adiga ayaan ku lahayaa haddana adiga oo kaliya ayaan ku leeyahay. Waxaan isku dayayaan labadooda inay shumiyaan. Laakiin maadaama meesha dad joogaan way kala boodayaan. Habeenkii labaadna way isla kulmayaan. Waxayna ka salaaxaysaa madax waxaan ku dhahaysaa xalay ay sheekada naga xumaatay caawa mar weyn naga xumaato. Labadoodna meesha ay isku shuminayaan. Abooheelow markuu arkay indhaha ayuu taagayaa. wax walba meesha ka dhacayna way iska iloobayaa. Filimkeena qurux badnaana halkaan ayuu ku dhamaaday. Muuqaalkan daa ka heshaan like noo saar, subscribe noo taabta, gambaleelkana furta. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Mac salaama.